قرن ماي يعني مين كسر مشروع ما كسر على وعندنا هالنقطة واللي ما مشاريع واوين وودوي بكذا بره دولة هذه الساعة وادقتي هنا دولة الأخت لا استقع شطة وحى تشتغل على كل شيء بركة ده شطة وحى عصر لا يدك الدبل كذا يدك الدبل كذا نورتي أقول هاي عنا يشطة هنا دك وحى كشلا إن دك وحى كشلا ولا سوء عليه ولا صار نقطة أغانتي دغالي الدبل الجاه لي هذه بان بيكون هذا علينا إياه وحي قلوان قدبنا إن شاء الله وحيناها كل الدورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا هذا سارة الشيخ محمود سارة عبد الله سارة بلاقي وهذا كتبنا هذا اللي ما هو مشروع المركز الويرية كتبنا القراءة وسيرة ذي تشوف سارة بلاقي فليتفضل. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. ضمان المرتدى هل كان يسوي تمد سو دوينتا البروفيسور عبد الولي قاس مدحوين دولة القبلات بنتلاند waxaan u sheegaynaa inaan isagana soo dhaweynayno idinkuna aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida aad u soo sharafteen oo aad ugu timaadeen xuduurkiinu uu yahay hadal badan waa la yiri wixii la sheegi lahaana waa la yiri hadal tiraduna ma fiicna laakiin laba waxay arood hal wax baan rabaa inaan ka hadlo oo ah waa laga hadlay horumarka Puntland samaysay waa laga hadlay xiriirka Puntland ay la leedahay dawladda Imaaraadku iyo midda Soomaaliya wala leedahay aniga waxaan qabaa shakhsiyan markii Soomaaliya jirto ayaa Puntland ama gobol kale jira dawladda Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadkuna dawladooda waxa weeye muddo dheer xiriirkoodu socday xiriirkooduna ka weyn yahay mid siyaasi kaliya uu yahay mid dhaqaale ah mid ehelnimo ah mid wada dhalasho ah mid muddo dheer soo martay ay tahay siduu ka sheekeynayay safiirka Cabdiraxmaan Cusmaan marka waxaan leenahay laba fariimood baan midna waxaan u dirayaa halkan anigoo ku hadlaya magaca gabdhaha Soomaaliyeed marna ku hadlaya magaca gabdhaha Puntland marna ku hadlaya magaca inta halka isugu timid oo aan idan ka sii qaadan doono waxaan jeclaan lahaa Professor Abdul Wali inuu aad iyo aad uga shaqeeyo sidii Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka xiriirkoodu sidii hore u socon lahaa inuu ka sii fiicnaan lahaa oo madmadowga iyo waxyaalaha hadda ku jira laga saari lahaa dawladda Imaaraadka waxaan ka codsanaynaa annaga dad waxaan nahay dad maaragtay masaakiina dad waxaan nahay dhaqaalahooda liito dad weli dagaal ku jiraan oo aan weli isu wada imaanin oo gobolladayada qaar baa weli nadiif ahayn waxaan ka codsanaynaa dawladda Imaaraadka inay noo caroonin wixii ay nasiin jirtay iyo wixii ay noo qaban jirtay iyo mashaariicdii intaa soo socotay inay noo sii xoojiso noona dulqaadato dadka waxaa raadinayana ay naga reebto dawladda Soomaaliya madaxweynaha farmaajo iyo prime ministerkiisa waxaan ka codsanaynaa inay raadiyaan sidii cilaaqadii sideedii loogu soo celin lahaa oo aan caadifad lagu shaqaynin lagu shaqeeyo reality runtu waxay tahay runtu waxa weeye Soomaaliya kama maaranta dawladda Imaaraadkuna waa loo baahan yihiin annaguna waa u baahannahay
dalka imaaraadka anigu markaan iska soo qaado 39 sanaan joogay waa dalkaygii koowaad bay markaas noqonaya marna waxaan isleeyahay Soomaaliya iyo imaaraadka labadaba waa labadaydii dal inteena badan halkaan joogtada sidii hore loo sheegay waa dad muddo dheer meeshaan ku soo noolaa maalin maalmaha ka mid ah ma aanan dareemin inaanu dad ajnabi nahay waxaan u qabnaa inaanu dalkayga joogno ama nabad ha ahaato ama wanaag ha ahaato ama soo dhaweyn ha ahaato waxaan codsanaynaa oo dowladda Soomaaliya ka codsanaynaa inay dib u fiiriso cilaaqadaasna sidii loo soo celin lahaa oo loo sixi lahaa ay aad iyo aad uga shaqayso xoog badanna saarto madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Professor Cabdiweli waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa inuu noqdo meeshii qofkii isku xiri lahaa dowladda Soomaaliya dhibaatada iyo dowladda imaaraadka waxa ka dhex jira sidii loo sixi lahaa iyo sidii loogu helin lahaa biyuhu meeshay mari jireen tabakooda ay u marin lahaayeen mas-uuliyaddaas Cabdiweli Professor Cabdiweli aad baan kuu saaraynaa waana kaafilaynaa waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqso badan warkii hore war ka fiican iyo midka qurux badan inaanu maqalno oo aan aragno dowladda imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya iyagoo gacmaha is haysta shacbiga iyo jaaliyadda Soomaalida oo imaaraadka joogaana ay nabad iyo kalsooni ku joogaan waayo hadda xoogaa waxaa dhacday inay isleeyihiin dadkii maaragtay dhibaata ka jirta marka waxaan codsanaynaa Cabdiweli mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba arrintaas inaad si weyn xoog u saartid oo aad uga qabatid waxaan intaan idinku darayaa waxaa weeye dhammaantiin waa salaamantihiin Puntland iyo dowladda Soomaaliya waxaan uga jeedinaynaa nabad iyo horumar dekadaha iyo airportada dhismaayana waxaan uga jeedinaynaa nabad iyo horumar annaguna mar walba waa garab taaganahay wixii waddanka horumarkiisa ah oo lagu horumarinayo gobol kasta uu ku yaallo Soomaali lafduu yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Assalamu alaikum. This is probably going to be the only speech in English. I'm afraid I do not speak Somali. My name is Peter Gray. I'm a lawyer at Al-Dabashi Gray here in Dubai. And together with our friends at Al-Bawadi Critchlow in London, we were privileged enough to represent all of you, to represent Puntland in the negotiations with DP World that led to this contract. And I was asked to speak just to say one or two things. And so I'm just going to say a word about what's been achieved and my impressions as a foreigner, which I think is Ajnabi, as a foreigner who has visited Somalia. So this achievement is the biggest investment in over 30 years, and it breaks ground for more foreign investment in Somalia, for making business possible for all of the people in here. All of Somalis are going to benefit from this project, and it's thanks to the hard work and dedication of your government, particularly President Abdiweli, Minister Saeed, and all the other members of the government who deserve the applause for this. And also, of course, we must thank Sophia, who put a lot of hard work into this as well, and who all of us know. And also, of course, the UAE. We have to thank the UAE. I've lived here for 8 years. It's a great country, and it has a great deal to teach all of us, including me, about how to develop a country. It started from 40 years ago as just desert, and today we sit in it now. We can look at what's possible for Africa. We can see it here today. So I'll just say
my impression of Somalia, I was very fortunate with my colleague Jan Karl, who's over there, to be hosted by Minister Said and President Abdiweli in Puntland. This is better? Thank you. Now you can hear me better. We were fortunate enough to be hosted by President Abdiweli and Minister Said in Puntland. And it's a very interesting thing. I learned tonight many Somalis in this room have never been to Puntland. So I have been. But in the future, I hope everyone will go. And the thing about Puntland I learned is, it is a country of great, great potential. And we learn about its coastline and its fish and its resources. But the greatest resource in Puntland is its people, is everybody in here. Because it's people that make a country prosperous. The richest countries are trading countries. They're countries where business is done, and all the people in here are business people. So I'd say to you, thank you very much for inviting us here tonight. I'm grateful for the opportunity to work with you. And all I ask is, if I say one thing, it is, please persevere. This will be a long process to develop the country. I've worked with other partners before. It takes a long time. And as John F. Kennedy said, do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. So, thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin soo koobiyay fikrad halkan ka sheegay waxa uu yiri dekedda magaalada Boosaaso waxay ahayd waxa ku dhiibaday oo ku guuleystay muddo badan ka daba wareegayay madaxweynaha Puntland Dr. Abdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wasiirka dekedaha Saciid Maxamed Raage wuxuu yiri dadka reer Puntland dekedani waxay tahay horumar iyo mustaqbal dhow Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dhammaan geeska Afrika oo dhan wuxuu yiri ma aha maalin kaliya ma aha bilo ma aha sanado laakiin waa mustaqbal wuxuu yiri dubaydan aad arkaysaan waxa lagu leeyahay kambaniyo maalgashada waxa lagu leeyahay waxyaabo badan oo batroolka soo saara shirkado kale oo wadamo kale ah soo saara wali lama arag cid ka aadasha ama ku booqda waxayna halka maanta aynu fadhino daanta quruxda badan ay ku gaadheen horumar iyo isku tirsanaan iyo gacmo isqabsi marka reer Puntland isagoo la hadlayo wuxuu yiri dekedani waxay tahay mustaqbalkiina waxay tahay hay'ina waayo dekedda Boosaaso markii laga raro gaariga ama markabka laga soo raro China toos waxa uu imanaya magaalada Boosaaso halka transit ka yahay marka horumarkaas oo dhan ay dekedda Boosaaso ay xambaarsan tahay waa maasintiin khudbada iyo dhinaca golaha wasiirada ayaan ku soo laaban doonaa waxaan u yeedhayaa wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Puntland Yaasiin Seed falyatafadal mashkuur soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مدحونا دولة بنتلاند دكتور عبدولي محمد علي قاس ياشا وزير رضا مرتي شرفته دمان كسوقا بقلياشا سوالياشا حفلدان فروحدا بدن ويقوم الرئيسو بسي ينت لا شقينيسay dhamaantiin waa salaamantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan isleeyahay kolley khudbada ama hadal jeedinta wafdigan waxaa iskale madaxweynaha isaga ayaa inoo sheegi doona
muhiimadda shirkan uu leeyahay iyo xafladdan caawa halkan aad noogu soo dhowayseen khudbadda isagaa noo sheegi doono waxaan rabaa inaan laba arrimood oo yaryar aan taataabto ama wax ka idhaahdo mid waxa weeye waxa aan ka fahansanahay dowladnimada Soomaaliya intii aan hadda siyaasadda ku soo jiray ama caqabadaha aan is leeyahay runtii way ka muuqdaan midna waxa weeye maadaama 8 sano ugu dambeysay aan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadana inaan idiin sheego haddii marmarka qaarkood aad aragtaan cillada xagga ka yimaada inaydnaan u qaadan inay wax khatar keeni karaan yihiin waxaan rabaa inaan ku hormaro markaa Soomaaliya maxaa ka khaldan maxay tahay siyaasadda Soomaaliya iyo shidada badanaa ka jirta sidaa la socotaan laga bilaabo 60kii waxaa dhaqanka Soomaalida ka mid noqday inaan marna qof siyaasadda ka shaqeeya fursad la siin anoo yar waxaan xasuustaa idaacadaha raadiyaha maartay laga dhageysto ama kulligiin baad wada taqaaniin heesaha la qaadi jiray shibrayo heesa baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa yani kuwa la mid ah oo aan marna fursad loo siinayno qofka siyaasiga ah ee dalkan madaxda ka noqonaya ama dalka xukuma inuu xukunkiisa iyo shaqada loo igmaday uu markaas uu sida ay tahay u guto waxay keentay marka taasi in dalkiiba uu ku dhammaado ilaa maalintii xornimada la helay ilaa maanta ay aflagaado iyo waxyaalo la mid ah inay dhaqanka Soomaalida noqdeen hadda waxaa sii dheer waa la socotaan waxaa soo baxay wax la yiraahdo social media awal gabayo iyo heesa la isu tirin jiray hadda waxa weeye geedka yar baa la wada haystaa waxa weeye inta ugu akhlaaqda xubba ma taqaana ayaa maarta ku soo biirtay oo waxa weeye meel wax laga qabtaa leeyahay taa marka waxaan leeyahay nafteena iyo inta kaleba aynu ka waanino dadka madaxda inoo ah inaynu u ducayno waa ka fiican inaynu ama maarta ayno ama aynu habaarno inaan u ducayno in Ilaahay jidka wanaagsan uu ku duwo dalkana shaqadii loo ilmada ay u qabtaan inta halkaas aan ka oranayaa waxaan soo noqonayaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo aan ka mid ahaa labadii baarlamaan ee ka horeeyay waxa dhacda sida aad haddaba maqlayseen waayo dhaweyd oo laga hadlayay arrimaha dekadaha annaga waxaana soo martay dekada magaalada Xamar Muqdisho dekada waxaa la wareegay oo shaqadeedii la wareegay shirkad Turkiya baarlamaanku waa fariistay Turkidu waxay qabanaysaa iyo shaqada ay qabanayaan midna kama hadlin shaqada xukuumadda ay ahayd isaga shaqadiisu waxa weeye inuu xukuumadda la xisaabtamo oo wixii markaa xukuumaddu ay shaqadaas ay ka qabato markaa iyada weydiiyo baarlamaanku waa fariistay wuxuu soo saaray oo mooshin ka keenay oo resolution iyo mataqaana waxa la yiraahdo ka soo saaray in shirkadda Bayrak ay dalka isaga baxdo ilaa yoomina hada oo laga joogo 4 sanadood shirkadda Bayrak dalka ayay joogtaa magaalada dekada Muqdisho maamusha wax dukumeenti ah iyo wax baarlamaan ah oo mataqaana wax ka qabtay arrinteedu ma jirto shaqadeedina way wadataa marka waxa la rabay su'aasha inay isweydiiyaan go'aamada baarlamaanku soo saara ama qaraarada baarlamaanku soo saaray kuwaas oo kala weeye hadda horey baa waxa looga qaban lahaa taasa wax laga qaban lahaa marka intaan la soo aadin barbara iyo boosaaso la soo aadin bal muddo ay la joogaan horta ayadu dib ugu noqdeen waxa kale oo dhacday aeroboortka Aadan Cabdi International waxa joogta shirkad Turkiya oo la yiraahdo Fibori baarlamaanku waa ka fariistay isagoo yani waxba kala socon hawlaha ay baarlamaanka ay dekadaas aeroboorkaas laga qabtay iyo shaqada qoladaas wadeen ayadana mooshin buu ka keenay qaraar buu ka soo saaray waxa la socotaa Fibori aeroboor bay dhisay aeroboorka muraadaha ee quruxda badan hadda Fibori baa samaysay ilaa yoomina haadana iyadoo aan baarlamaanku wax jawaab dambe ku soo celin golaha wasiiradu aysan baarlamaan keenin ayay dalka joogtaa oo ka shaqeynaysaa marka ayadana waxa laga rabaa
inay halka ay joogaan waxa khasaare iyo faa'iido waxyaalaha inay daraasad ku sameeyaan oo dalka wixii fiican oo
مرة أوجع كلامنا أو سيد الله سبحانه وتعالى أي كم إذا هذا ما يقدر يبرئ يغير كذا كذا بالبليات security إذا قلت هي أكون الشخصين اللي أما أنا بطل دجاجة كمرحبين التاريخ كأنه هذا إذا التونس الشيخ هذا الشباب الداعش وحقنا الله مثلا الشخصين أو منطقة داس لما تقولين يهون بركة سيدو كان وحكوا هذا المشاريع وحكوا أولا بدلا وهو يتعلم لكن التوساس الصلاة إذا عاوشنا الغير عبد الرئيسان عارجين إن كمان يكون سلسلة الوقت الإعلامية دولة عاوشي وعارف شركات أساس على البلاد وحتى لو نسيبه كان هو مشاريع كذا ودراسة ولك وحبر الشرع عافماتك يديه وهذا الكيف فقير أربعية لأي أخر ذلك وحيبسوا مع الدكتور رمتي وارجين يا وحدة الله مدخلها هذا هو المسؤول كعهي تذكر تحدد إلي صوت في دور إن شاء الله سيدنا طبعا هتعني واجب ساعد مني إن كان الله صوت المصلحة الصومالية هذا بطل وحفظ الله أنا جاي اليوم كان حسنية استدل حسنية ويقوم رئيسه كجراسي حوله ولا سلطانه حولها نور والفرق لقالنا إن حولي الوفو وصومالنا أردت وحرجين يا إيران عن وقت على اسم ذكي ما عنده وربعي أني يعني على المعلو إلى إسلام يشكو إسلام تجدي جميع مع الرجال يا إلى نجيب كريم أديك كسالة كان كريم واحد طلق عليه الفرع يدور إن شاء الله طبعا سوى الكلام كان يحضر ضد سواء تقول مصلحة له عند الرجل ورجع هذا اليوم من ذلك يسوي في وجود بيت إن سوى الكلام الذي قاموا إن ببعضنا أكيد كان كشوفان هذا اللون بيسوي طبعا يبدو أن يكون رأسه على أساسه كأساميس رجعت عمرنا إن شاء الله يولد في الصعود إن ذكر هو سيدو ونعسس بالجد سيدو ونعسس وشق الإسلام إن الله بعدين أساس السوق ومصلحة يدا ومصلحة ورسول ذلك وحفظ ما لقد الحياة كسوق في صحيح خيارات المدني الدين ما أخذ الإمارات تدري الأحيان بقيلة واحد وحولها واحد محا أمانة الرجال صوبا وحاول نفكر إلى السهل حريق النجمة الدولية بدأ اجتماعها بدأ نقالها يمد نبذ الإنتاج طبعا situation كانت عن قبائل ويلقى
waxaan aaminsanahay inay tahay dabayl baasimin dabayl socoraysa oo dabaas karaynaysa waxaan rabaa marka waxaan ogahay rajaynayaa in dabayshaasi ayna dhaafto na gudubto aysan dib ugu leeyin wadogtiino diblomaasiyadda diplomatic relationshipska xiriirada diblomaasiyadka xiga dalalka waxaa ku yimaada turturooyin hiccup sameeya waxaan rabaa marka hiccup-kaasi inuu turturadaasi ay turturo noqoto haddaad turtaa ka ficto laakiin xiriirka aan la gaarsiin meel uusan ka soo dhaarin karin ama dhibaato xuli ay ka gaarto inaan la gaarsiin baa la qabaa waxaan ku dadaalaynaa marka aniga idinteeda midkaayna doo uga banaanya waxaa weeye inaan ka shaqayno in xiriirkaasi uu wanaagsanaado aan dhibaatana soo odayaasha odayaa ka hadlay xiriirka laga dhexeeyay taariikhdiisa utugsooda waa tamaadkaa ka hadlayay ambaashir abdiraxmaan annaga iyo imaaraadku runtii sista ayaan ka fikirana we are joining the hip ma kala maarno sideedaba xiriirkaasi labada dalba danba ugu jirta u wanaagsanaado soomaali keliya maaha ayaga laftigooda waxaan u baahanay inaan u sheegno in xiriirku wanaagsanaayin ay maslaxadda imaaraadka ay tahay marka inta aan ka shaqaynayno aan u sheegayno dadba waxa laga yaaba is tirahdaan cabdina dowladdii guud soomaaliyeed ee federaalku daba maray sida social media laga sheegayo hadda waxaan ka shaqaynayaa waxay taageero u yihiin dowladda maahan dowladda yani dhibaato kuma oo kama soo jeedo sababtoo ah waxaan ka shaqaynaya waxa weye xiriirkii soomaaliya iyo imaaraadku u wanaagsanayo taasaa annaga maslaxadeeda ku jirnaa dhammaanteed soomaaliyaduna ay dad ugu jirtaa imaaraadna dad ugu jirtaa insha allah taasitaasaan kaga baxayaa waxaan usoo laabanayaa puntland puntland waa wanaagsan tahay waxaan rajaynayaa puntlandka cusubi dabiyu puntland way qurux badan tahay meel fiican lagu socotaa waana ay friendulated friendulay taqaana leaves and bands produces siduu sheegay siciid waxaa noo socda wadmatira badan wanaagsan waxaa noo socda mashaariic ku oola waxaan u malaynayaa meesha keliya oo yeelanaysa saddex caynadood oo international soomaaliya puntland ku dara somaliland daanadaa waxaan noo socda mashaariic kale insha allahu waqti aan dheerayn waxaan dhiganaynaa fikad wanaagsan iska dabda aadkood aada u wanaagsan leh free zones leh industrial parks iyo wax badan oo kale insha allah waxaa noo socda jidad muhiim ah dalka gudihiisa sababtoo ah isku xidka dalka aada buu muhiim u yahay jidadku muhiimkii loo yihiin way ugu muhiimsan tahay waddada ceelgaal oo la soo tamadmaya waddadaasoo ah strategic aan rabnaa qof kasta oo meeshaa fadhiya qof kastoo la isku daalay inuu contribution ka geysto insha sababta waxaa weeye dowlad noo dhisamayaan kambaniya caalami dhisamayaan puntland baa isku tashatay oo dhisaysa
dadka waxaa ka socda sidoo kale in dowladnimada la gaarsiiyo reform soo yiraahdo isbedel inaan ku sugino dowladnimada Puntland oo maxay tahay waa la socotaa waxaa xowli u socda barnaamijka oo jira public finance management reform ama se isbedelka iyo horumarinta dhanka dhaqaalaha maxay tahay waxay ii sheegayaan maanta today wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland isagoo xafiiskiisa fadhiya ayuu uu kontroolaya uu og yahay shiri kasta oo soo gaaraya dowladda Puntland gobol kasta ha ahaatee iyo shiri kasta oo baxay oo barnaamijka mashaqadiisa la yidhaahdo financial management information system maanta inaysan jirin qof xisaabiyo oo degmo jooga oo wuxuu doona bixin karo inuusan isaga laftiisu awood u lahayn inuu madaxa dhaafiyo waraag badan iyo ammaan badan ayaa laga helay hay-adaha caalamiga sida bangiga adduunka World Bank waxaa socda barnaamij loo jira CIP Capacity Injection Program oo ah in la tayeeyo hawl socodsiinta hay-adaha dowladda oo dad wanaagsan oo waxbartay loo hayayo barnaamijka World Bank aad maqasheen oo ilaa hadda ilaa 105 shaqaale ah ay hay'adareeyeen iyagoo ay bixinayaan lacagtooda ilaa dhowr sano si loo tayeeyo hay-adaha dowladda ee Puntland waxaa socda barnaamij loo jira civil service reform oo ah in shaqaalaha dowladda mudulkiisa lagu sameeyo isbedel waxaan ku bilownay in la reform gareeyo wasaaradaha dowladda structurekooda qaliila qaabdhismoodkooda waxaan u nimi wasaaradda 52 shaqaalaha laakiin 10 ayaa soo waaxid 16 daarada ku timaa shaqaalaha ayaa 52 maanta waxay ku kooban tahay 6 department waxaan u baahannahay small but efficient government lead dowlad kooban tayo leh يعني كوبن لكن تيار شقينيس وعمل الوزارة لا يصدح لا أثر على سياسة الدول بمالي كريتي تنسيسي استراتي كنوع ناسس إن سمدر المسلمين الدول البلاد وحالة تلفون شغالات الدولة ماشي أنا بحنك للمشاهد بحنك للتدرفون أو شغالات كبدا وحالة هذا شغالات الدولة ما عندهم الكوبية هاي biometric data lagu sameeyo numberkiisuna amaanka uu yahay 5,8 shaqaale waxaan sameeyay waxa la yiraahdo civil service institute ama maxadka horumarinta shaqaalaha waxaan dirin la yeelay maxadiyada shaqaalaha ee Kenya, Tanzania iyo Ethiopia inay noogu sameeyaan macallimiin la sameeyaan tababar la sameeyaan on the job training oo ugu tarto ay noo sameeyaan wadamadu maanta ilaa hadda 48 shaqaalaha ayaa keliya u bixiyay oo shaqaalaha dowladda oo baranaya maamulka maareynta xisaabaadka canshuuraha markay soo laabtaanna si ay iyada shaqaalaha hoos u tababaraan institutkii hadda waxaa hoos galeynaya jaamacadda BSU ilaa haddana waxaa jirta gudaheeda 106 shaqaalaha waddankiisa lagu tababarayo أنا جاي أقول لك شو كلها كمان هي لاتو اسمها هي لاتو بقطع فول فرنجة أو شخص صعب أو بلارة هذا شيء إن شاء الله. وأقول إيش يا معنا إنه
وسارة وقوة نقطة هي أكثر قوة نقطة دولة إلى الدقيقة يقولوا أي يوم داتا كان وصوات كان كسر الجنة فيش الماتش مش أدري لا هي لا تركي الناس هي لا تركي وحنقول طبعا أي وهذا هو public administration forum أما سياساتيك تيلا معلومة على فكرة هي كروه طبعا ولا كان أيوه دوهاوين على دولة دوهاوين شغالة دوهاوين مالية هذا عن كهذا إليه والشيء اللي يشوفه هذا دولة النوبية هذا إيوه local government management لما سي بعضهم كدولة خمسة واحد بحاجة يقول هذه يقول شيء صرفتها دولة لماذا it's all about institutions دولة لماذا كما صحت حيث الدولة دولة والبعض حرمات كانوا وكل شيء من آخر الدولة وإلى ذلك differences institutional differences waa la yidhaahda amase wadamadu sida ay u kala duwan yihiin hay-adahoodu ayaa horumarkooda u kala duwan dowladdu wejigeedu waxay u ekaanaysaa dowladooda baadaa haykalkeeda dowladda siduu yahay ama institutionskoodu nooc ay yihiin ee qaabka u shaqeeya marka anagu waxaa rabnaa dowladnimo wanaagsan la jaanqaadi karta adduunka maanta jira iyo dalagyada maanta jira mid la jaanqaadi karta la socon karta ayaa mudan sidoo kale kama hadli karo mamarba ku cilmaaadumabaahan kama maranayaayo waxaa weeye horumarka koo ka socda dalka amaamada qadriyaha ceelasha warooyinka wadanka programska waxaasoo dhan waa horumar noo socda wey alxamdulilah badalna waxaan ku samaynay ma aha dhaqaala dowladda looga yimid waxaa weeye inaanu buntland isku tashano in aanu annagu waxa aan qabsan karno aan qabsano insha allah dabcan ugu dambayntii meel waxaan ka rajeynayaa dhulkaad ku nooshihiin si fiican ay ku noolaataan waxaa jira hadda ay iska saan sheega ay noqotaan wax iska hiccup ah una dhaafo dalka aad ku nooshihiinna nabadgelyo iyo horumar iyo barwaaqo ku noolaataan shidana aysan soo gaarin wixii kaloo markaa idinku waxqabad ah oo dalkiina aad la qaybsanaysaan ama aad ka qayb qaadanaysaan aad ka qayb qaadataan dalku waa idin baahan yahay aqoontiinu u baahan yahay dhaqaalihiinu u baahan yahay fikirkiina exposure-kiina dowladnimo ayuu u baahan yahay waxaan rajaynayaa in aad taasna aad contributionska ka geysataan khayr iyo gul baan idin rajaynayaa aad iyo aad
isaga oo hooyo dhashay oo calool 9 bilood ku soo waday oo maaragtay waa gabar dhalatay oo gabar qaba inuu inta maaragtay publicly social media waxaa jira dad expert social media dadka lacagta ku siiyay intii nolosha ka dhacday because nin xishoonaya gabar ma aayo nin mustaqbalka gabar ma aayo nin raba inuu maaragtay shaqaystaa gabar ma aayo nin xishoonaya gabar ma aayo laakiin waxaan si dara nolosha ka dhacay oo live haysan ama North America ha joogaan ama Soomaaliya gudaheeda ha joogaan baa lacag loo qoray waa waxaan aragnay oo nagu bilowday 2017 kahor weligay maanaan maqal gabdhana aayo nin dhanoo siyaasi isku sheegaya awliyada public aniga TV 3 clip baan hayaa oo ugu caayo waxaan ku leeyahay dowladda America soo jasiiraan deganahay oo laga fiyaa mahna gabdhaha ayda adiga jasiirada lagu dejiyaan طبعا marka waa dib badan oo soo marday waa maaragtay waxyaalaha aan aqoon jirin oo nolosheena aan weligeed soo marin siyaasad Soomaaliyeed aan lagu arag dad maaragtay loo dejiyo hoteelo ama lacag loo siiyo inay gabdhacaayaan aad u fiican waxaan leeyahay nimanka Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed ka waantooba gabdhaha caydooda hadday gabdhuhu maaragtay ay wax qabteen ka xanaaqina because inaad ku fogaadisaan waa laakiin inaad caydaan aad u fiican social media-dan ku bilaabatay 2017 waxaan ku codsanayaa inaad ka noqotaan kuwa joogaan iyo siyaasiyiinta ceebta nin siyaasi ah nin madaxa nin mutacallina markii la sharfi jiray bahda kuujeedaya weliga taariikhda ma aragin nin mutacallin oo la caayo lama aragin madaxda la caayo laakiin waxaad arkaysaa أنا أقول قف عن لوزر أهين أما لا عن كذا إنه مارد قف مدحنا وحكي كرم قف مارد بويانا وحكي كرم وتعاد أمه الدين هذه دقيقة سنة وحربا كذا أبو ساسة كذا وقتين أنا مارد كشقين يشوف الحمد لله ما أنتم حسوا كأنه ليس بثواب gabagabaynay waxaan ku dhawaaqi doonaa insha Allah bisha 7-keeda kambaniga ku guuleystay ismaha dekada Boosaaso insha Allah next year by this time April baan saxiixnay April first wala waxaan ku arkay Facebook kule maxaa qaybta labaad laga hadlayaa qaybtii hore lama dhameeyay marka waxa ka maqan qaybta hore waxa weeye inta kadib lagu wareejiyo nimankan in guriyihii ay degi lahaayeen loo diyaariyo in maaragtay ay qaybta hore waa qaybtaas oo deegaankoodii iyo shaqadoodii iyo in lagu wareejiyo managementigii oo documents loo saxiixo qaybta labaadna waxaa weeye tandarkii la saxiixay oo dekada dhismaheeda ahayd oo hadda aan ku guulaysanay Mr. Saeed iyo Cabdiweli waxay u yimaadeen inay finalize gareeyaan dekada dhismaheeda mas'uuliyadeedana waa kii xaawal gudisay insha Allah next year by this time waxaa la saxiixay April 6 today waa April ayadana waxaa la dhameeyay qaybta labaad qaybta saddexaadna waxay noqonaysaa insha Allah next year by this time waxaa isugu imaanaynaa containers إن شاء الله مرة البلد يجي ليش ما تنتهي إنسان يدقي سنة تنتهي هذا ما تنتهي ما نفخر السنة هاي إن هذا ما رت أنا قال سوق عشان حفلة وأنا ما سنتي هذه يوم ما سنتهي سفيا أو هاي قابية هي حفلة بدن حفلتي وينوس قبضي مدحوينها يا الله عبد هلكا كتير هذه أدوات ما سنتي خيارتها الله فيسبوك نجيتها برامج كتوس كورس عطاء قال كذا أمشي عضو أمشي عضوية كل هذا بدلان الشعب الصومالي يدافع عن كل شيء ما تسمع حفلة أمشي عضوية هذه حفلة شكميت خيارتي بدنا حفلة سوق مقابل سنة ما تنقيا حساب سعيد سبعان أبو القمام هذه اللي يرد الكلام اللي بعمل سوسن
caafiyo waxaa kaloo heritage ciidan badan bay shaqeeyay aad badan salaamaya ku soo dhawaaad aragtaa shacbiga ku socdayo xawlada caawa bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan halkaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha gobolka Puntland madaxweyne Cabdi Maxamed Cali Gaas iyo wafdiga wasiirada la socday ee noogu yimid maanta martida noogu ahaa dalka Imaaraadka waxaanu boqolkiiba boqol soo dhaweynaynaa horumarka noo keenay ilaalinta dekedda magaalada Boosaaso haddaanu nahay ganacsiga ku sugan dalka Imaaraadka Carabta waxaa aad aan ugu dhibtoonnahay shimentiga amase qaabka badeecadaha dalka waxaan soo dhaweynaynaa deked ballaaran oo nooga sameeyay degmada Boosaaso halkaasaan ka keeni doono badeecadaha dunida dacaladeeda waxaan leenahay shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaaniin inay ku baraarugaaniin horumarinta iyo horumarka dalkooda madaxana looga dambeeyay siyaasadda iyo wixii markaas kaga habboon waxaan kaloo ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya inay taageerto dekedda dhismaha dekedda Boosaaso waxay la mid tahay dalkoo dhan sida dekedda xamar u dhisantay waa inuu dhistaa dekedda Boosaaso salaamu calaykum يا كاميرا الله يبارك على الكاس صلوا ويننا يا شباب هذه ويننا قرب تاجن هاي قول مركزية فيه مركزية ما قاني والله الإمارات الصومالية كدحية هذه أدبر مفرحسن هاي وما تنتهي كمان أيوة دراسة المحافظة عطل حضر مفرحسن هاي العلمي وقال وقال عيسين مرحبا نسيب نحن وعلى شعبها في باقي السنة قال الواحد سمرني بدنا ما نأخذ رجمان يا أبو وعلى سنين وعلى سنين الابتالي وعلى نوقهم هنا الحماياشي يرمان المسؤولين في كمان وجعل اللي حاضر فرحسن هاي بكذا نور بسريو وقاف رحمة الناس الإمام كذا قبل فرحسن هاي كذا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عشان انت عادي كرق على عدك halka sheeg soo dhaw codka soo dhaw waqtiga dheer wadanka Imaaraadka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadweynaha fayaka beelaha waxaan ku haysano sharaf iyo karam iyo ciisi waxaan leeyahay wadanka Imaaraadka wadan aad iyo aad waa wadanka iyagiisa koobaad weeye marka waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa dowladda Imaaraadka inay dulqaad ay samayso oo waxa weeyaan arrimaha ugu dhameeyo shacabka Soomaaliyeed خلاص laga abaaldhicin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته